Maxamed Siciid Cali oo loo garanog yahay Maxamed Turki waa 24 jir aandhiisa wali kaga bogan caalamkan quruxda badan balse ka garaadiyay garasho dad badan oo lixaadkooda qaba. Maxamed waxa uu ku 995 ku dhashay magaalada Burco 2008 ayuu bilaabay malcaamad Quraan isagoo ku khatimay muddo sanada. Intaa kadib 2011 ayuu bilaabay dugsigiisa dhexe isagoo ka bilaabay dugsiga Sheekh Ibraahim ee magaalada Burco. Maxamed waxa uu sii watay hay'adkiisa waxbarasho isagoo jeclaa mihnada saxaafadda فكركيdu ku dhalatay sanadii 2007 asaahate waxa uu ku biiray barashada saxaafadda sanadkii 2016 oo ah 9 sano kadib maalinka ku fikiray hadaba bulshada uu ku dhex nool yahay sidee ayay ula dhaqmaan Maxamed ama dadka araga naafada ka ah. Maxamed aad baad mahadsantahay run ahaantii horta wax caqabada ah oo maaragtay saa u waaweyn bulshadeena igala kulmaan way bulshadeenu 100% waa bulsho maxaan kugu dhahday wax garada ama base maxaan kugu dhahday dhanka wanaagsan u fikiraya laakiin in yar baa waxa jirta caqabado igala kulma bulshada maxaan kugu dhahday mararka qaarkood waa sometimes maxaan kugu dhahdaa tusaale ahaan marka qofku ku arko adigoo ah qof aragga indhaha naafo ka isla markaasina soconaya ama base isdibaraya waxa dhici karta erayo moral ahaan maxaan kugu dhahday qofka niyad jabinaya inuu qofku ku dhaahdo tusaale ahaan inuu ku dhaahdo warbalkan indhaha la sidoo soconayo maxaan kugu dhahday qofkan maxaan kugu dhahday ma mucjisa waxyaabo noocaas ah inay dadku ay runtii ay ku dhaahdaan maaragtay taas oo kale waan la kulmaa laakiin waxa qabada maaragtay lama kulmo oo maaragtay sida u waaweyn way bulshadu aad bay ixtiraamtay tixgelisa isla markaasina ay maxaan kugu dhahday maamuus iyo hab qadarin wanaagsan ay siisaa. marka laga yimaado garashada iyo aqliga Ilaahayna siiyay waxa jirta waxbarasho dheeriye oo aynu jaamacada uga baxno si aynu ugu maarayno nolosheen. hadaba Maxamed waxbarashadiisu ma u suurta gashay si Ilaahay ma ku simay inuu dhameysto. waxaynu ognahay qof kasto indhaha naafo ka ah ama siday u badan yihiinba inay guryaha baaqi ku ahaadaan marka ay foof tagaan dadka guriga kula nool ama si qaarkood ay waxbarasho u dareeraan. Maxamed marka la aad baad u mahadsantahay maxaan kugu dhahdaa waxbarashada markii ugu horeysay waxbarasho waxaan bilaabay 2000 iyo maxaan kugu dhahday si toos ah waxaan bilaabay 2007 ayaan si toos ah u bilaabay markii ugu horeysay waxaan ka bilaabay dugsi Quraan ama maxaan kugu dhahday malcaamad Quraan dawladana marka waqtigaas maxaan kugu dhahdaa indhaha maxaan kugu dhahday si toos ah maxaan kugu dhahdaa dhulka ulamaan qabsan marka waxaan kugu dhahdaa macaamadaas ayaan ku bilaabay kali marka aan tagayo isla markaasina hal sano ayaan maaragtay ku soo gabagabay inaan macaamadii maaragtay aan ka takharujo Quraanka Kariimka ah oo aan barto xifdigiisa iyo maxaan kugu dhahdaa qiraa'adiisa intaba waxbarasho maadiya isla markiiba waan bilaabay 2009 markii taariikhdu ay ahayd maxaan kugu dhahdaa bishii tobnaad ayaan waxaan galay private la yiraahdo universal oo ku yaala magaalada Burco marka waxaan ka bilaabay luqadaha Ingiriiska iyo maxaan kugu dhahday luqadaha Soomaaliga iyo Carabida dawladana private kaas ayaan maaragtay markii ugu horeysay waxbarasho maadi aan ku galay dawladna private markaan luqadii adigu aan alxamdulillah aan ka bartay maxaan kugu dhahday tafsiirka Quraankana maxaan kugu dhahday aan Quraanka aan bartay ayaa dawladna luqada Carabiga horta si fiican bay soo ka furfurtay tii Ingiriiskana private kaasaan ku qaatay isla markaana aan ku bartay dawladna in igu filan markaan bartay ayaan dawladna marka waxaan bilaabay inaan galo school dawliya taariikhdu markay ahayd 2011 maxaan kugu dhahday bishii 7 dawladna marka iskuulka Sheekh Ibraahim la yiraahdo ayaan ka bilaabay waxbarashadii dugsiga maaragtay dhexe oo dugsiga hoose marka kama bilaabin laakiin class 5 baan ka bilaabay dawladna marka 2000 iyo maaragtay 13 ayaan marka adigu aan iskuulkii dugsigii adigu aan dhameeyay eedkii. sidoo kale waxaynu ka dheregsanahay qofka aragga naafada ka ah hadii uu suuqa ama hawl dibadda uga baahdo inuu u baahdo qof ka xeeya balse Maxamed taa uu kaga duwan yahay wuxuuna u socdaa sidii qof caadi ah. markaan guriga ka soo baxayo waxaan kugu dhahday waxa jirta adkaar maxaan kugu dhahdaa uu Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam inoo jideeyay inuu qofku maaragtay qofka muslimka ah uu akhristo maxaan kugu dhahdaa marka uu guriga ka soo baxayo iyo marka uu galayo iyo marka uu suuq qabanayo intaba
noloshayda horta waxaan ku dhisan gareeyay ama ma garanaysaa aan ku saleeyay in aan maaragtay maxaan kugu dhahdaa adkaarta aan akhriyo marka guriga marka ka soo baxayo waxaan akhriyi jiray adkaarta amaba saan akhriyaaba adkaarta guriga lagaga baxo dabadeetana maxaan kugu dhahdaa wadada oo kale markaan marayo maxaan kugu dhahdaa wadada hab qiyaas ayaan maaragtay aan u qiyaasaa macnaha maskaxda bini'aadanka qofka ilaahay maskaxdiisa dee wuxuu maaragtay siiyey awood fara badan oo maxaan kugu dhahdaa qofku dee uu wax fara badan uu ku dareemi karayo Soomaaliduna waxay tiraahdaa qofka hadduu ilaahay uu meel ka qaado meel kale ayuu maaragtay ilaahay uu maaragtay u geliyaa ma garanaysaa waxyaabihii meeshan kale ma garanaysaa dee laga qaaday ma garanaysaa nicmadii ka dhinayd marka run ahaantii wadada waxaan ku maraa qiyaas maxaan kugu dhahdaa markaan meel ku socdo kala qiyaas aan qiyaastay baan ku socdaa deedna saasan ku tagaa meeshaan rabay marka maxaan kugu dhahdaa baabuur oo kala dhici karta inay kugu soo baxaan marka baabuurtana qiyaas baan iyagana aan kaga beeraa haddii masaajid tahay iyo haddii suuq tahay intaba runtii Maxamed Siciid waxyaabahan kaga yaabay waxa kamid ah markuu kula socdo horta in uma baahna in cid guriga ka soo kaxayso ay suuqa keento oo dib u celiso gacanta qabato uma baahna wadooyinka sakadaha halka maxaan kugu dhahdaa gabaadhidu marto wax kasta xuu garanaya sideeda aniga inaan saaxiibna Khalid leedahay soo raacnay habeen aan saan u sii fogeynba aanu ka baxnay marka xarunta Gallery Production kadib inta jidka sii soconay ayaan koodi dhagax Maxamed dhagax ka bayd dadin xuquuq waan garanay halkan dhagax yaalo ninkii kale marka ay la socday baa yiri Maxamed miyaa taqaanaa kadib ushiisi u sitay ayuu 7 meelood oo wadadii kamid ah marba meel saaw qabtay halkaasina waa gud halkaas waa maxaan ku dhahdaa way taagan tahay oo way yar sareysa bartaas waa askariga jiifay laamiga wadadii wuxuu kala garanaya meel kasta waxa yaala si caadi ah yani waxyaabaha anaga indhaha qablaan aan arki jirin oo laamiga meelaha qaar oo sibir ku qabtay oo yara taagan isagu toos buu garanay isaga bana soo gul bartaasna halka sibir ku qabtay oo way ka yara taagan to hadii aad arkin wad ku tiroonaysa saas uu isagu soconaysa gurtu suugaya anaguna marba halka uu usha noo saaro ayaan ku eegayna waxa noogu sheego isagu baruntii caynkaas halku dhahdo waa gud halku dhahdo dhagax yaala bartu dhahdo waa askari jiif isagu toos buu garanaya uga tallaabsanaya maxaa kugu dhaca gaariga markaan soo raaco ama nooc kasta ha noqdo baabuurta yaratiga ha noqdo baabuurta caadiga ha noqdo maxaa kugu dhacdaa laftooda maxaa kugu dhacdaa waxaan sameeyaa iyaga laftooda hab qiyaas baan sameeyaa waayo markaan iminkaan meel ku socdo meel baan si calaamadsadaa dadna marka tusaale ahaan sikada xaafadda looga beerayo kala waan calaamadsadaa ama meherad caana baan ku calaamadsadaa ama maxaan ku raraa suuqa markaan ku socdo kala meel caana baan calaamadsadaa dawladana markaa waxaan sameeyaa si de maaragtay qofku maadaama maaragtay de noloshu ay gedgedoon badan tahay oo maaragtay ay caqabado badan tahay de si aan caqabadaha nolosha maaragtay igaga imanaya ma garanaysa aan ula qabsado waxaan sameeyaa wax kastaba in maaragtay maskaxda Ilaahay si aan u adeegsado tusaale ahaan markaan rabo inaan suuqa aado kale waxaan kugu dhahdaa waxaan dhahdaa gaariga markaan soo raaco marka hore waan soo lugeeyaa gaariga noocaan raacaya ama taxi ha noqdo ama bus ama tig ama gaariyaasha caadiga nooc doonaba ha noqdee markaan raaco waxaan dhahdaa meel hebla iyo istaaji ama moobilka qofku markuu isoo garaaco maxaan kugu dhahdaa laba siyood baan sameeyaa tiknoolajiyada ayaa kamid ah waxyaabaha saameynta aad isticmaalo qaar ku yeeshay qarnigan aragga indhaha naafada ka caawiya ku xiran sida moobilkan ku isticmaalo social media moobilka gacanta waxaan kugu dhahdaa waxaan laba mid baan sameeyaa baali yar waxaa jirta microscope la yiraahdo oo dadka aragga naafada ka ay isticmaalaan marka bahasha yar ayaan inta badan marka aan de lambarada aan maaragtay marka aan waxba ka garan waayo aan tusaale ahaan aan saas oo kale aan dul saaraa dadna markaan indhaha ku dhaweeyo waan arkaa lambarkii laakiin markaan ka qaado ma arkayo marka haddaan taas oo kale taa waan ku isticmaalaa lambarada waan ku ogaadaa lambarkaasi lambarku yahay si kalena waan sameeyaayo lambarkii waan qabtaa kadib dadna markaan qabto dhigtaan saa u saaro qofka codkiisii baan ma garanaysaa halow markaan raahdo de qofka codkiisii baan garanayaa oo de maaragtay anagu inta badan dadka naafada ama dadka indhaha naafada ka adan nahay cod baan ku shaqeynaa waayo aragti kuma shaqeyno
cod baan ku shaqeynaa codkaas ayaan maaragtay qofkaan maalin aragnay iyo qofkaan aan 10 sano aragnay waa isku kaayimid marka lambarada qaarna qalabka yar baan isticmaalaa qaarna waan qabtaayo deetana marka codkoodan gartaa saasan aan lambaradan ku saleeyaa social media ama baraha bulshada qudhooda kama madhna bal aynu eegno sidoo ku bilaabay inuu isticmaalo Facebook iyo qaabka uu isticmaalo runtii social media huwa aalad maxaan kugu dhahdaa bulshada maaragtay ku soo korodhay isla markaasina ay imka ay cid walba ay isticmaasho muxuu ahaayay haddii dadka indhaala yihiin haddii dadka caadiga yihiin maxaan kugu dhahdaa dadka naafada guud ahaanba oo dhanba marka la isku wada geeyo dadka caadigaaba imka isku sibaa loo isticmaalaa dadka dee ma garanaysaa dee tusaale ahaan dadka naafada markaan aan u nimaadno kuwa de markaas bartay ama waxbarasho wata ama maxaan kugu dhahay hibe kale gaaraba uu Ilaahay siiyay marka social media waxaan ku isticmaalaa cod baan ku isticmaalaa codkaasi waa voice ku jira mobilka marka uu hadlayaa codkaasi kadib dawladna markaad iminka tusaale ahaan daatadii markaad furto waxaan kugu dhahay wax ku sheegayna daatada aad furtay oo aad si fiican u isticmaali karto Facebook-gii markaad gasho wuxuu ku oranayaa waad gashay Facebook-gii dadka chat-ka ku fadhiya uu ku sheegaya inta tiradooda ay yihiin kuwa ugu horeeya magacyadooda ku sheegaya dawladna marka qoraalkii maxaan kugu dhahdaa adigu keyboard-ka baad wax ku qoraysaa deetana codkana markaad keyboard-kaada wax ku qorto wuu dhawaaqayaa imka xarafka Maxamed imka markaad doonayso m markaad rabto inaad qorto m baad qortay buu ku oranayaa a markaad qorto i baad qortay buu ku oranayaa saasoo kula shaqeynaya dadna jumladii markaad qorto ayaa deetana aad meesha space-ka taabanaysaa dadna wuxuu ku sheegayaa inaad qortay Maxamed oo marka English buu ku hadlayaa Maxamed Soomaali kuma oranayaa laakiin Mohamed buu ku oranayaa marka tusaale ahaan waxaad qortay ma fiican tahay dawladna marka ma fiican tahay buu ku oranayaa oo marka waa English iyo Soomaali isku jira ayuu kugula hadlayaa marka qalabkaasan ku isticmaalaa social media Maxamed Siciid runtii waa shakhsi isagu isticmaala YouTube-ka soo gashtay fiidiyoodiisa dhanka kale Facebook-ga qoraalada iyo maqaalada ku soo gudbiya WhatsApp-ka si toos ah u isticmaala hadda ogsoono waxaan kugu yiri Araga ka Naafo haddana intaas oo dhan waa ruux isagu qabsan karaya waan cidna uga baahnayn lambarkaaga marka aad u sheegto isla daqiiqadiiba uu xafidaya maskaxdu ku qabanaya kadib inuu ilaawo mar dambe lagama yaabo markasta oo ku baahdana lambarkii aad u sheegtay sidiisii ay ka soo waayay runtii horta maalinkii ugu horeysay aan samaysto Facebook-ga dhacdo ayaa maaragtay keentay inaan samaysto waxaan kugu dhahdaa haddaan dhacdada aan marka ugu horeysaan kugu horeysiiyo waxaan dhigan jiray iskuulkan Sheekh Ibraahim aan imka aan ku lahaa maxaan ku dhahay waxbaan ku bartay dawladana maalmaha kamid ah ayaan anigoo saasoo kale u fadhiyo casharkii aan qoranayno ayaa inaan aan isku class ahayn oo isku kursina aan ahayn ayaa marka waxa uu isticmaalay Facebook dawladna marka waxaan ku iri marka mobilkan mar walba aan dareemay isagoo ku jeeda oo casharadii kaga mashquulsan kadib dadna waxaan ku iri walaal cashareen dhiganayna mobilka ma iska diisido waxaan kugu dhahdaa aad maaragtay casharka ma dhigatid dadna marka waxay igu iri waxaan ku dhahay qof maxaan ku dhahay Finland jooga baan la haystaa adiguna samuradan ku hortaalaad wax ka qoranaysaa dadna marka horta waxa aad iga yaabisay kelmadaas dadna marka waxaan ku dhahay iskuul baad joogtaa sidee baad maaragtay aad qof Finland jooga aad ula haystaa marka waxay igu noqotay waxyaabo wax qawaariqul caada ama ma garanaysaa wax de maaragtay ka baxsan garaadkayga oo marka de Facebook wuxuu yahay ba maan aqoonin waqtiga waan maqli jiray dhigta laakiin wuxuu yahay marka si toos ah maan aqoon dawladna inankii baan waxaan ku iri saad marka waxaan idin wuxuu igu Facebook wax la yiraahdo isticmaalaya qofkii saani baas ku arkaysaan waxaan ku iri face to face baas ku qaabilaysaan dawladna marka waxaan ku iri oo ka waran marka anigu ma samaysan karaa dadna marka wuxuu igu iri ma adigu ma samaysan kartid dawladna marka waxaan ku iri maxaa iga hor joogay inaan samaysto maadaama adigu wada aad isticmaalayso kadib dadna marka wuxuu igu iri anigu de aragti baan wax ku isticmaalayaa laakiin adigu aragtidii ma lihid marka saan ku iri oo galaas baan imka kula dhigtaa maxaan kugu dhahay imtixaan baa naga qaaday maxaan kugu dhahday laga yaabaa inaan ka sareeyay marka sidee baan u isticmaali karin dadna marka wuxuu igu iri maxaan kugu dhahday ma isticmaali kartid buu ku soo gabagabay anna marka waxaan ku iri bal inaan isticmaali karo ayaan ku tusayaa dadna maalinkii ugu horeysay ayaan gurigii imi dadna habeenkii markaan gurigii imi baan marka maskaxdayda waxa ku programsan inaan samaysto Facebook
maxaan kugu dhahdaa si aan inanka hadda aan maaragtay aan u tuso inaan waxaan isticmaali karo kadib dabadeedna facebookii ayaan markaa aan maaragtay inan aan saaxiibanahay inan horta aan ilmaadeernahay baa ka yimi wadamadan qurbaha wax ku soo bartay dabadeedna markaa waxbarasho jaamacadeed buu soo dhammaystay oo adigu markaa uu fasax ka soo qaatay inankii baan deedna ku wuri walaal bal waxaan rabaa inaad ii samayso marka ugu horeysa message-ka qaabka loo qoro qaabka loo akhriyo wixii oo dhan buu i tusay Facebook ii samee baan ku wuri deedna wuu ii sameeyey horta intaanu ii sameyn buu isagu wuxuu igu wuri oo saad u isticmaali karaysaa kadib deedna waxaan ku wuri adigu dee wax kastaaba waa barasha ii samee kadib deedna Facebookii wuu ii sameeyey deedna toddobaad baan wax 7 casho ka yar ayaan ku bartay qaabkii loo isticmaalay dadna markaa inankii baan codsaday igu lahaa maxaan kugu dhahdaa ma isticmaali kartid Facebook dabadeedna kadib markaa Facebook ciwaankayga dhinaciisa oo kale waxaan ku qoray indhala'aantu ma aha dhamaadka nolosha laakiin niyad jabku waa nacabka nolosha dabeetana inankii baa soo aqbalay kadib markuu inankii soo aqbalay ayaan dabeetana waxaan ku qoray welcome my friend oo English ayaan qoray dabadeedna kadib markaa horta inankii saasan ku tusay in aan Facebook aan isticmaali karo isagii wuxuu igu yiri adigii ma tihid guriga igu kaalay baan ku yiri dabeetana inaan aniga hayeen kala ayaan ku tusay markaa isagu xulay waa lagu qorayaa ama adiga ma samaysan isaga laftiisa la yaabay dadna inankii markii uu ii yimi ayuu dabadeedna aan tusay inaan maaragtay aan aniga isticmaalayo kadib waxaan ku yiri waxaad ogaataa ilaahay shay kastaba inuu awoodo qofka bilaadanka lama niyad jabiyo laakiin qofka maxaan kugu dhahdaa moraalkiisa sara loo qaada maxaan kugu dhahaa aragtiduna qof walba dadna ilaahay uu ku siiyay ana ilaahay uu siin karaa adiga ilaahay uu ka qaadi karaa aniga uu siin karaa dabadeedna marka maalinkii koowaad markaan Facebookii waxaan comment baan maaragtay qoraal baan soo dhigay maxaan kugu dhahdaa dadna qoraalka waxaan kaga hadlayay maxaan kugu dhahdaa jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan maaragtay nabadgelyada ay haysato iyo wanaagga ay ku naaloonayso aan kaga sheekeynay dabadeedna qoraalkii markay dadka arkeen ayaan deedna markaa halkan waxa ku qoran indhala'aantu ma aha dhamaadka nolosha laakiin niyad jabku waa nacabka nolosha deedna markaa sawir aan anigu leeyahay oo u shan aan haysto markaa aan haystona waan isku soo sawiray dabadeedna kadib dadkii waxay yiraahdeen ninkan waa nin indhala sideebu Facebook u isticmaali karaa dabadeedna dadkii su'aalay weydiiyeen horta taasa maaragtay wixii ugu horeysay aan maaragtay aan dadka aan la kulmaan ay ahayd dhinaca caqabadaha kale muuqaalada iga yaabiyay kale maxaan kugu dhahdaa maalmaha kamida ayaan markaa cod baan aan ku isticmaalaa anigu muuqaalkii maarkayo dabadeedna markaa hees aan aad u taageeri jiray oo maxaan kugu dhahdaa uu qaado fanaanka Allah u naxariistay Maxamed Siciid Cali uu qaado oo tiraahdo maxaan kugu dhahdaa adduunyada nin dhoofiye ninkii degan dhulkii hooyo heesta tiraahdo ayay soo dhigeen Facebook dabadeedna kadib markaa anna maan islahayn waa la dhigi karayaa ma garanaysaa heesaha kale ma garanaysaa waa la dhigi karayaa daway wax wii cusba dabeetana muuqaalkii iga yaabiyay ama maxaan kugu dhahdaa aan markaas ku arkaana kaasoo ahaa